السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا شرفت له اكو حيران channel كيغا ومركله فيديو عصب ما انتو waxaa ila fadhidaysaa orkeysiin walaashay nasteexo channelka wax badan ay ka soo muuqan doontaa sa hor idin ku sheegay maadaama khabiirkii dhamaa ay tahay ma fahanteen insha Allah ta'ala waxa idin leeyahay barnaamijka marka kugu horeysay ee videogan aad daawato haduu yahay please subscribe ka noo saar fadlan like ta saar lacag ma ahan insha Allah ta'ala qofka walaalka waa lagu dhiirigeliyaa marka waxaan idinka codsanayaa videoga inaad like ta saartaan oo asxaabtiin usii shargareysaan barnaamijkan waa qiso aad iyo aad u xanuun badan oo murugteeda wadato oo qof asxaab aan aqaana ku dhacday marka insha Allah ta'ala gabadhaas waxay jeceshahay inaa la qisada iyada ay soo ogolaatay in maxaa la dhahaa idinka idin la shargareeyo isla markaana aad siisaan wixii talo yani oo waana يعني إن شاء الله أرنتاس حد يكون حجرتا وأرن عصب ومردو دعدي مركا إن شاء الله تعالى قصدنا سيؤدى هذا من بلو إلا دمات أيدي شكين دوناتو إلهي رهدو إذن كانوا حقين كرجينا يا دتك إسكورائي ما قفوا البرائي جيسا إنه كومنت تجو وقصو قرأ إلهي وأجي هنا ولصو تليه جودا ولا شيء ونسو دعيسان إنه إلهي قلبي جدو قبوجيو إن ولا لها شرفت لسا أكتهين إن شاء الله تعالى بالرمضان الوجرة tobankii dhaxaa la maraaya waxyaabo yar oo baraarujina idin sameynayna insha Allah ta'ala tobanka ugu horeyso waa maqfira tobanka dhexe waa raxma tobanka dambana waa cidku min annar caawa ramadaan waxa waaye 13 insha Allah ta'ala marka video ku duubeeno caawa ramadaan 13 marka waxa idin ka rajeenayaa in aad ka faa'iideysataan bisha ramadaan in bishan aad dhamaysaneen Allahu a'lam inta kale nagu dhalan doonto Allahu a'lam marka insha Allah ta'ala waxaan idin ka rajeenayaa in aad uga faa'iideysan doontaan bisha ramadaan oo maxaa la dhahaa amaasha khayrka iyo sadaqada iyo wax walba aad baxsan doontaan haduu Allah yiraahdo qisadii aan ii guda galo waxa dhacday dhowr bilood ka hor gabar aan isnaqaano oo yani friends aan nahay ayaa nin guursaday gabadha ninka intaas adi sanad ma igu dhahday sanad ma tarto sanad ay dhahday soo ma ahayn sanad ay ahayd nasiix markaa telefoonka la isoo diray way la joogtay marka sanad amal xiriir lahayn ay tiri ninka way isguursadeen markii dambe ilaaha calaf iskugu daray gabadhi gurigeedii degtay markay guriga degtay gabar is yaqaaneen ee isku fiicnaayeen oo somehow qaraabo miya ama friends ama wax saasi ahaayeen gabadhi familkii ahayd gabadha la soo raaciyay markii la soo raaciyay gabadhi waxa la gabadhan todoba bixi intay todobada ku jirtay gabadh maxaa la dhahayeeto gabadhii iyo ninkeeda xiriir ay sameeyeen wallahi markii iyaga sheekeynaysa aad ay u qaraacansaneed ani laftirkay waxyaabaha qaar waxaa laga yaabaa inaa seetaa u sheegi waayo yani markaa la ii sheegayo yani waa iska taqaanaan dumarka aan ka shoogay marka insha Allah ta'ala sida ilaahay idinku ogyahay uu soo bixiya talo gabadhi sidii markay sameysay ninkii fiican soo siiyay gabadhaas adi todobada bari ugu horeysaan ku fahmay dhahday inuu ninkaaneeto uu sidii hore ay ahayn maalmii ugu horeysay todobada ayaamul casalkeedii ayuu muxuu la dhahaayay uu qiyaamay isla markaana wuxuu ku qiyaamay qof uu yaqaano qof ay iyada taqaano oo walaasheed ama friendskeeda ayuu ku qiyaamay gabadhii xiriir la sameeyay aan waxay dhahday waji ima haayo cuntada ay soo diyaarina gabadhu sii raaca maanta hadal ku turtuura niyadii dhana iga dhimatay dhahday qalbigii dhana ay mudowaaday aniga dhan waxay dhahday depression aan qaaday meel aan maray ma garanayay tiri marka insha Allah ta'ala horta ilaahay waxaan uga rajeenaynaa inuu ilaahay qalbigeeda u qaboojiyo oo qalbigeeda iyo aqligeeda ilaahay ka raacinin hadii caafimaad qabto wax ka halaabayo male 20 jir waa dayax ninka fiican ay heli kartaa laakiin hadii maskaxdeeda damage gaarto bas waa dib waa marka insha Allah ilaahay inuu horta caafimaadkeeda u saxo oo miirkeeda u sugo ayaa ilaahay ka rajeenaynaa adi alxaasil sheekadii aan iyo kala goynina gabadhii ninkii ultimo 3 bilood kadib way isguursadeen wuuna la soo hor istaagay يعني horta marka hore suuqa ka maqashay markay suuqa ka maqashay habeenada kamid ah waxay tiri ninkii waxaan dhahay tiri warheede arintaas suuqa ku jirtay maxaa ka jira markaas wuxuu dhahay tiri arintaas waa sax weyna jirtaa gabadhan waa qaba 3 habeenaa guri leeyahay oo cad ani markuu waxay tiri ilaa hadda jawaabaan bixiye malahan shoog ahaan igu dhacday tiri hadalkii hadana sida dhiiranaanta leh uu igu sheegay ama kasi qaracmay tiri
markii ay weydiisay yani si dhiiranaan leh uu uga nixiyey uu yidhi ha arrinta run waaye naagta waa isqabnaa 3 habeenaan guri leeyahay oo dhahay marka waxay tiri hadda suura buu yeelaa suura buu u dhaqmaa yani suu ani inuu idaayo camal anigana waxaan sameeyaan garan la ahay marka walaalaha sharafta leh kugu xiran igu tiri friend iskaaga ah taladan u bandhig waxyaabaha maxaa la dhahayeeto ila soo wadaagaan jawaabahooda iyadana kulli hadda way fiirsanaysaa barnaamijka fariimihiina way akhrisan doontaa hadduu alla yiraahdo marka insha Allah taala ani ilaa hadda tala aan siiyo ma lahan sabab wax aan ku taliyo iyo waxaan dhahaaban garan waayo shooga igu noqotay yani arin saas u naxdin badan oo maxaa la dhahaa iyadiyo xataa 3 bilood guri laheen adi 3 bilood camal guri iska leh 4 bilood gaarin oo waliba hadda ayaam xilwigeeda marayso in hadda la niyad jabiyo dhib aad u weyn waaye marka idinka wixii ra'yigiina iniga soo dhiibta annagana fikradayna waa u dhiibayna waan la hadlaynaa insha Allah tayna waa tunoo gooni hadda kabtan kama sheegi karno telefoon baan kala hadli rabnaa hadee waxaan leenahay asxaabta gabadha la soo taliya talo wanaagsan fikrad fiican marka qalbigeena yaan laga dilin waa qofka walaalkeen ha markuu dhaawacay waa gabar yar 19 jir ah gabadha dhibkaas uu ku dhacay marka ilaahay baa u qadaray wuxuu ilaahay qadaro maxaa la sameyn karaa qadar Allah ma shaa facal waaye qofka ilaahay wuxuu u qadaray inuu ku qanco waaye soo anaga mar walba waan la itixaamaya qofka mu'minka sidiis waa la itixaamaya hada caafimaad qabtid ina ku shukriyo sida la rabaa haduu ilaahay nimco ku siiyo ina ku shukriyo sida la rabaa hadii dib ilaahay uu kula kulansiyo ina ku sabartida la rabaa marka anaga hada muslim nahay wax walba oo nagu dhaco waxay noo yihiin wax wanaagsan soo dhiba kugu dhacay waa ku sabraysa ajir aad helaysa wax walba kugu dhaco ajir baa ka helaysa hadii si la rabay aan noqotid hadii wax ilaahay farxad leh uu ku siiyo oo ku shukrisana de ajir baa helaysa marka insha Allah taala walaalaha sharafta leh waxa idin ka rajeenayaa inay si fiican ula soo talin doontaan gabadhaas oo talooyin fiican oo xalgal leh oo qalbigeeda uu ku qaboobi karo oo walaaltinimo ku jirto inaa la soo talin doontaan hadduu alla yiraahdo barnaamijka naga codsatay abaayo adigana waa kaas waa ku soo galinay waxaan rajeenayaa inaad daawanaysid oo barnaamijkana aad maxaa la dhahayeeto aad ku farxi doontid walaalaha talada ay ku siiyaana aad ka faa'iidi doonto asla markaana si yani kugu sidii aad markaa kula wanaagsan yani qaadan doontid hadduu alla yiraahdo insha Allah barnaamijka hadii halkaas soo garto waxa ka codsanaya inaad like ii saartid like lacag ma aha subscribe kan noo saar gambalelka furo insha Allah taala stay tuned waxyaabo badan soo galiya routine soo galiya vlogs soo galiya waxyaabo badan oo anfacaya channelka soo galin doona hadduu alla yiraahdo hadda laftirkeeda dib u raac macmacaano badan keega dhalashooyinka busbuusaha dhihin ay nooc macaan oo kala oo dhan ayaa ku jira oo si faahfaahsan u soo duubnay oo ka heli doontaan insha Allah vlogs badan waa soo galin doona hadduu ilaahay yiraahdo naga cajisana ku dhacsana waxyaabaha rabtiin in channelka lagu soo biiriyo ka soo hadla وين سلام ولا شرفت له عزي في شرفكم ولا هذا peace and love السلام عليكم وعليكم السلام